بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sida runta meeshaan waxaan tacsiyo uga dirahayaa ummadda oo dhan, gaar ahaan ahalkii ilaahay subxaana wa tacaala oo ku arsuqay iyo ciddii qaraabo la ahayd iyo ardadiisii sheekh cabdi xirsi oo ku dhintay dhuusamareeb sida la ii sheegay. anagu tuule la yidhaha gadoonan ku ogaa oo 2 goorna ugu tegay. runtii culimmadii ilaahay maaragtay oo igu gargaaray ka mid ah, oo markii aan xernimada u imid raggii ugu horreeyay oo carabkayga buuryada ka gooyi ahaa. anaa waxaan ujeedaa yani cilmigii raggii ii bilaaba ku jiray. ilaahay u naxariisto. aana ku jeclaa, caabidna isaguna ku ahaa, tarbiyadaydan xataa wax badan ku lahaa oo yani tarbiyada diinigahan ujeedaa iyo khuluqda iyo maaragtay wanaagga. runtii aada iyo aada baan maaragtay aan ilaahay uga baryahayaa naxariistiisa, ilaahay inuu janatulfirdows ka waraabi, darajadiisa kor ugu qaado, janatulfirdows uu geeyo. dadkii hadda uu ka tegaynaayeen, dadkii uu ka tegaya ahalkiisiina ilaahay sabar ka siiyo, iyagana ajarkooda allah weyneeyo, sabarna allah siiyo, wax khayr lana allah ka reebo insha allahu tacaala. marka waxyaalaha marka aanan ilaawin waxaa ka mid a, maalin baa waxaa dhacday suuqa xoolaha ayaan tegay. markaasaan waxaan ku arkay ri oo sumadayadii leh niman wata. marka neefkiiyaan marka waa bar aqooday. markaasaan idhi war ridaan xaggee ka keenteeno? waa soo gadanayo. waridan annaka ale maaragtay mana aanan gadane, waxa weeyaan maaragtay ridaan annagaa iskale. nimankiiaan markaa ridii ku qabsaday. adeeg markii dambe ragaa nagu soo baxay, waa dhexdhexaadinay nagu sameeyeen. markaasay oo neefkii ledii wixii laga bixiyey ay noo kala bareen. kala barkii ayaa markaas laysiiyey. waan soo tegay, isagaan marka u imid oo waxaan idhi saasaa dhacdo. calashaan waxaan nacahayay marka in oo wax aan sax ahayn inay igalaan ama diidahayay. saasaa dhacdaan idhi sheikh. marka adiga marka wuxuu yidhi sida xalaal miirashada markii la eego ma fiicno dhah. waa runtiisu haddee shaygii daahirkii waa neefa annakii leenahay, waa sumadayadii caankahayd uu leeyahay, laakiin wuxuu yidhi xalaal miirashada kuma fiican. warkama aana soo celin, waa soo tegay. nimankii aan u imid, waxaan yidhi lacagtiina hooya. marka aaday iigu duceeyeen. ninkii maaragtay neefka lahaa aada iigu duceeyey. markaasuu markii haddee lacagta uu iska qiimay 14 ku qiimeeyeen. 2 shiinay 2 maaragtay kala baray ahayd 7 ay siiyeen. 7dii marka sideedii aan ugu celiyey. markaasuu wuxuu igu yidhi 2 shilin oo isiiyo yidhi maaragtay lacagta waagaas qiimay lahayd oo yidhi tanaa kuwa xalaale qaado. marka waxyaalahaanan iloobinay ka mid taha tarbiyadaas aada u cajiibka lahayd oo ilaahay subxaana wa tacaala ninkaas oo wax badan ay ahayd, laakiin waxyaalaha aan la iloobi karin ay ahayd tarbiyada noocaas oo maaragtay xalaal miirashada. runtii intii ka dambeysay yani waxyaalaha shubuhaadka waa iska ilaaliyaa. waxyaalaha shubuhaadka waa iska ilaaliyaa aada iyo aada, oo ama ilmaha inay kaa galaan ama adiga ku galaan ama maaragtay diintaada galaan, waa arrin khatara waaye. marka waxyaalaha aanan ilaawinay ka mid tahay. 2 goor meesha gadoon waa ugu tegay waagii maxkamadihii. waa markaas lafteeda maaragtay de waa cuslaayo maaragtay hadda sariirta wax badan kama uusan kici karin ama kama fogaan karin. marka ilaahay ha u naxariisto. aada iyo aada dadka waxaan kaloo ku xusuustaa waabaan
وأن مركز سعودي كايمد با أيام وحن وكان ده وحن إسلام فقهي مركز كتبه شافعية ده ومارتي أصوب متخصص كقوها وعلمي جيدا مارتي وفارفيني aan u keenay qaar ka mid markaasuu wuxuu yiri war kuwaanu maartay agtayday ka buuxaani kutubtii sunnada maxaad ka haysaa marka sunanu nisaa iyo markiiba say kaligiis ugu ahaa ayaa siyoon iri maartay bahalkii muxuu ahaa kana marka sunnadii maartay kanaan hayahay ka qaado marka ilaahay ha barakeeyo anigana runtii kitaabka iyo kiik midka weyn oo sunan kubra la yiraahdo kulli ilaahay waa baysiiyay alxamdulillah marka macnaha waxaan ka waday sheekhaas ilaahay asagana ha u naxariisto jannatu firdaws la geeyo anagana maartay wixii uu nataray ilaahay aan ugu anfaco insha Allah waa rajaynayna ilaahay inuu ugu anfaco aad taqiyana waa ahayo isaga laftiisu yani tahaqqu fara laakiin faridiisa iyo waxa kala weynaa mid aad asaga ka baranaysid iyo dhaqankiisa midka yani tarbiyada midna adigu ku faraya oo kugu wanaajinaya oo maartay midna waxa weeyaan asaga ka baranaysa oo asagiya sameynaya marka dadka saasuu ahaa maartay aad iyo aad naadirka sida runta ahiyo oo maartay yani naadirka ah marka saasa maartay ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu baryahay inuu isagana jannatul firdaws uu ka waraabiyo u naxariisto dadkiisina dadkii oo dhan iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo wixii wax ka bartay ardadiisii iyo kulli in ilaahay maartay iyagana sawir ajaarka siiyo ajirna uu kudana u weyneeyo kiiskaas marka asaasan taasan ka dhihi lahaa kiis kale oo hadda maartay xogaa ayaantan hawada waa sira xogaa ka maqnaaye aan maartay aan ka xalay habeen hore iyo aan ka arkayay oo asagana runtii aan aad aan uga yaabay ayaan asagana rabay wax yar inaan ka iraahdo oo waxa weeyaan gabar iyo wiil isguursaday oo Soomaaliya oo leeyahay maartay bahalkii muxuu ahaa dadkii ahalka u ahaa nin ahalkoodiya oo wiilka adeerkiisa lana dilay lana gubay علشان leeyahay waxyaalaha Soomaalida iyo muslimiinta oo dhan way iskaga jirtaa وهذا النبي جوا وشيء ummadda inaysan ka zuulaynin nooc kufriyana ay tahay in nasabka la isku diro oo maartay la isku caayo iyo xasabka waxa loo yaqaan yani kala sareynta dadka iyo maartay iyo qabiilka labadaba waa la isku caayaa ummadeeduna waxyaalaha aysan ka tagayn ku jirtaa laakiin nooc kufri ah yani nooc oo maartay kufri amaliya jira iyo kufri oo aqadiya marka kufri amaliya waay marka waxyaalaha saas oo kale taahi inay dhacitaankoodaas aan aad iyo aad uga yaabay uga xumaaday waxa iiga sii darnaa sida loo maamulay oo sida loo maamula iiga sii qaab daran runtii sida loo maamula iiga sii qaab daran yani dhacdada dad baa maartay mufsidiin oo qaab daro ku kaca waa jiraan laakiin qaabka loola tacaamulayo oo loo maamulayo ayaa maartay ama wax sii xumeeya ama wax maartay wanaajiyo marka waan runtii waa ka yaabay waxa weeye dad maartay bahalkii maxay meesha dadka la islaaxin lahaa in la isku sii fasaadiyaa meesha ka dhalanaysa war aanan hubin waa yaraha jiraan oo waa maqlay qolo sheegayso le maartay hada Soomaalidana waxaas waa lagu yaqaanaa oo nabiga sallallahu alayhi wasallam لعن الله من آوى محدثا حديث كي مارت علي أيوك كجري لعن الله من آوى محدثا يعني قفك حمانة السماء قفك دبرك القشداهي إلهي لعنتها كريدو يري النبي مركدتك والد دوفيي مارت عين كاس وكلام مارت وحيالنا ساعة قول شيء سوى مغلاي لكن صورنا كله واكسور قال لكن تحقيق وما هي مركز كيس كاس قولك يا جودي ومارتي والأروسيو سقرنها لو أروسيي باركي محوها ضدكي قاروا واحرين يهبرتي واحرين تهي يعني قابك اسمع وما أنا فاهمين قابك ومارتي الله ما مولي وحاس آذن وحماضي ماشي نوحن دريمة هيا إن يعني كيس كمركي حدث سيدو قول عي ناسي شرعية ومارتي بهالكي محيدي أن الله عشان مارتي اللوغا هول قلينا ودريمة هيا
markaan dambana si caatifiya yani dadku waa ka hadlayaan laakiin si caatifiya kiiskan caatifo kuma fiicna caatifo kuma fiicna caatifo kuma fiicna wuxuu ku fiican yahay sharcan in meel la saaro wax kan ummad dhan oo maaragtay bahalkii maxay ahayd qof dad daweed inta kusoo duushay aan xaq qabin inta dishay haddana gubtay waxa saasi xadadkaas xadad oo saas maaragtay ka anfacaya waxaas waa wax xun ma aha dadka in maaragtay abaalkooda la mariyo waa abaalkooduna waxa weeyaan xoogaa meesha waxaan dareemahayaa hadda nimankan oo maaragtay maamulka joogaana nimankan maamulka jooga iyo maxkamadahooduna hadda ma garanayo qaabka noocaasa dad hadda oo xaqiisa marin kara ma u malaynayo inay igama muuqato dhaqanka bahalkii kale kuwa culummada fuqahadana lafteeda mahalkii muxuu ahaa ضعفiga ku jiraan garanaya hadda ka hor qadiyadan soo martaa jirtay oo dad intay ku tashadeen qof inay maaragtay ay dilaan hadda ka hor kusoo marnay oo wadaadadii maaragtay ay yiraahdeen madhab kale ma khilaafi karno arrintaana maaragtay bahalkii maxay ahayd saan maaragtay nagulahma boon yani qaabkii oo fiqhigoodu u dhigayay ضعفiga meelaha uu ku jiray kamid tahay fiqhiga maaragtay shaaficiga meelaha oo kamid yahay ay kamid tahay oo waxa weeyaan laba arrimooda jirta oo iyaguna xoogaa yaraha dhib ah oo nin hadduu nin qabto nina dilo nimaa qabtay nina waa dili ninkii dilay hala dilo iyo ninkii maaragtay qabtana hala xiro oo kiiskaas marka waa kiis oo sidiisa u taagan waay oo qaabkaasi u leeyahay yani niman ku ballamay maaha nina waa qabtay wariiqaba mau qabtay kii kalena waranka ku joojiyey ama xabadda ku joojiyey marka labadaas qof waxa weye saasay kala leeyihin sax waaye xadiidka marka xadiidka kusoo arooray marka saas midna waxa weeyaan dad tashaday oo dad inay dilaan ku tashaday waaye ama qof ha noqdo ama jamaaca ha noqdeen dadaa soo tashaday qofay dileen kiiskaasay marka xadiid marka waxaa jira bukhaarigu uu warinayay iyo maaligii warinayaan oo cumar niman oo maaragtay qolo yaman ah oo reer sanca ah aan nin u tashaday nimay dileen qolana wiil yara yidhaahdaan marka dhowr qof marka mar 7 lagu sheegaa mar 4 lagu sheegaa ayay dileen riwaayaduhu labadaba waa sheegay ayay dileen wiilkii marka cumar wuxuu yiri waa dilay marka ayakii oo dhan uu dilay wallahi markaas wuxuu yiri hadal uu markii ka tagay khatar ah wuxuu yiri law tamala ama timarat ishtarakana waajirtaay law tamala ahlu sanaa la qataltum jamii'an saasoo kale hadday isku wada heshiiyaan inay wiilkaas ama ninkaa dilaan hadday reer sanco dhan ku heshiiyaan iyaga dhanaan layn lahaano marka tamaalu waxa weeyaan hadda shaaficiyadu guud ahaan way qabaan shaafici wuu qabaa in maaragtay dad badan qof loo dilo wuu qabaa laakiin fiiriya meesha marka ay ka xumaatay waa maxay waxa weeyaan waxay leeyihin mala suuragalahanba maba suuragalaha xataa cilmiyan isa waaqiciyan suuragal ma waxay leeyihiin qof walba marka wuxuu ku dhuftay waa inay ay dil keeni karaan oo maaragtay uu u dhiman karo nabarku ku dhuftay inuu u dhiman karo warkaasna wax macquulna ma aha macquulna maba maba suuragalahaba nimaa madaxa qabta midaa lugaha qabanaya midaa maaragtay baaziinka ku shubaya midaa maaragtay dabka tabriidka ku daaraya midaa yani waxaas wax saxa ma nin walaalkay yaha qola saas u gashay qaar madaxay qabteen qaar lugahay qabteen qaar maaragtay korku ka fuulo waa celiyey markaasu midna waa gowracay markaasi waxay dhaheen midkii gowracay keliyaha la dilaya markaasuu maaragtay nin wuxuu yiri ninkii dhammaayo kiiska watay waa ninka qabtay waayo maaragtay korka ka fuulay maaragtay waa in maaragtay lama dayn hala daayana waa dhib uu yiri madhabkii khilaafkiisuna dhib waa marka arrintaas waa arrin oo aad iyo aad maaragtay oo daciif maaragtay aad iyo aad dacfi weyn waay meeshaas marka waxa weeyaan ma aha culummada inta badan waa saas waay ninka xataa kan waardiyaha waa la dilay kan xataa waardiyeynahay waa la dilay soo moo jeedi oo maaragtay markii dadkii falka ay sibinayeen ninka awoodiisa ragga awoodooda lagu joogo oo waardiyaha xataa waa la dilaya sida saxiixa oo loo badan yahay marka waxa weeyaan waxaad yeelaysaan ilaahinka habaqa
kiiskan ilaahay ha looga boqo caatifada waxba kama tarayso dadkan waxa weeyaan maartay mujrimiinta jurmiga intaa la eg sameeyey waxa weeyaan maartay ilaahay ha looga boqo oo waxa weey kolley haddaba maaqaan maamuladan iyo maxkamadoodu maartay qaabka ay ma u malaynayo inay maartay wax weyn ay ka yihiin laakiin dadka oo culimada ahuna ciladaasa ku jirta marka kolleyba waa uun hadda in warkaygu hadda inuu soconayo kalma aqaan laakiin dadkaan rabaa inaan u reebo kiiskaas saas kuma xalismayo mid labaadaan ku daraya oo waxa weeyaan qaabkan aad la yidhi maartay aroos qarana loo samaynaya walaalayaalo waxyaalo badanaa waxyaalaha idin sheegaya waxaas waxba kuma xalismaan gabdhahani marka hore waxa weeyaan markaas ay maartay shahwadu ku taagan tahay waxa weeye meeshay ku dhagaan waa shay iska waa saas way lagama fujin karo si walidaalika soomaalidu tiraahdaa allow aynana rabin nala kama kare allowsanna nici nala kuma kare saasay dhahaan markay taagan tahay waxa weeyaan dhibkaasu waxa weeyaan waa hayaa asagay maartay ay qiimaynaysaa laakiin markii ayaan joogto shahwadu ka dhacdo waxa weeyaan ma dhaqmi karto sidaan marka aad yeesheen waxba kuma dhaqmaayaan gabadhu ma dhaqmi karto haddeeran ba idiin sheegaya ma dhaqmi karto gabadha maartay hooyadeed waa xiran tahay bahalkii maxay ahayd maartay muxuu ahaa waxaan qalbigeedu ma joogaayana anaaba idiin sheegaya waa wax halaalanba kusoo marnay badan marka waxa weeyaan sidaani waa qalad sida aad kiiska asalkiisa ula mucaamilootanna waa qalad sida kuwan labadan aad ula mucaamilootanna waa qalad waay waxa waa la islaaxiyaa waxa weeyaan wixii xaq qabana xaqaa laga gooyaa wixii islaax u baahanna waa la islaaxiyaa laakiin sidatan waxba kuma soconayaan si saxana ma aha meelna ma tegayaan gabadhaanuna ma dhaqmayso haddeeran ba idiin sheegaya ma dhaqmi karta gabadhaan qolada markay guursatay iyo qolada kaleba waxa weeye gabadhaan ma dhaqmi karto haddaba waa idiin sheegaya dadkaana maartay ayaga laftoodu intaanu hiil uma noqonayso yacni dadka waxaan sheegaya ninkii laga dilay arrintan intaan hiil uma noqonayso haddaba waa idiin sheegaya waxaan marka sax maaha tanna sharcigeedii baan hala marsiiyo tanna waxa weeyaan islaax iyo markii islaax dhaco oo wanaag dhaco hala magiciseey waxaan maartay si saxa maaha marka ilaahay ha laga baqo sida tanu si saxa maaha marka waxa weeyaan kiiska saasaan isugu daray marka labada qoloba maartay qolana hadeed waxa weeyaan tacsiyada u dirahaya hadda qoladan tacsiyadeeda waa la soo dhaafo hadda anigaan la kulmin laakiin meeshan tacsiyada anigu maba ugu talagelinba sababta waxa weeye tacsiyadeedii waxa weeyaan waa in kiiskan sharci la marsiiyo waa in si saxa loo qaabilo waa in maartay jiridada laga gooyo waa in maartay salka laga soo gooyo salka si samar dambe u dhicin si samar dambe u dhicin waxa weeye waxaan waa sunno xun man sanna sunnatan sayyi'a falahu wizru man camila biha ila yawm alqiyamati marka waxaan salka in laga gooyo haddaan salka laga gooynin kiiskaas waa nagu soconaya waxna ma taraayo qoladana hiil uma noqonayo qoladana maartay waxba maartay yani zajri uma noqonayo marka arrintan si sax ah loo galo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.